haweenweynaha ururka Himilaayo ee gobolka Saaxil ayaa munaasabad ballaaran oo ay habeenkii xalay ahaa ku qabteen hotel Allure ee magaalada Berbera waxa ay ku taageereen waxqabadka xukuumadda uu hogaamiyo Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo geesta kalena waxa ay jawaab u direen xisbiyada mucaaradka waxaana ka mid ahaa hadalladoodii sidan maadaama dumarkii reer Soomaaliland dhammaantood adigu ka joogaan inaan haddaan gobolka Saaxil iyo kuwa Soomaaliland awoodooda ay cod iyo cudud iyo maal iyo muruq iyo maskaxba aanu kala badbaadinaynaa dowladda Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo uu hogaamiyaha u yahay inay wax muuqata oo la taaban karo oo indhuhu arkaan ay qabatay waxaan leeyahay mucaaradka indhihii ka qarsaday waxqabadka dowladda kulmiye waxaan leeyahay indhaha furta oo dhigaha wax ka maqla oo hareerihiina eega oo ka eega waddanka Soomaaliland horumarka la gaadhay magaca ururka Himilaayo waxaan halkan uga jawaabayaa gabdhihii ka hadlay Hargeysa ee aflagaadaynayay qaranka Soomaaliland marwada Soomaaliland wax ka sheegayay marka shaqada laga fariisiyo qofkii uu madaxtinimada dib looga dhigay la wadaadkii oo kala taagane ayuu oranayaa sida loo ahaan jiray markuu ku jirayna wax kama sheegay ma gaydo marwad cay ma gaydo xumaan waa hooyadii Soomaaliland gabagabadiina waxaa munaasabadaasi soo afmeeray hoggaanka sare ee ururkaasi Xiis Xasan Cali iyo waliba marwada maareeyaha dekedda Berbera Farduus Maxamed Maxamed ana kamid ahaa hadalladoodii sida marwo iska dul qaado kursiga iska leh xagashada iyo aflagaadada ma arkayno wixii la qabtay iyo daaraha la qabtay iyo wixii dawladdu qabatay indhihii caafimaadka qaba wax kale way arkayaan maxamed raday wax badan uu qabtay madaxweyne ka horeeyna wax badan uu qabtay kii maadaama wax badan uu qabanay halkii uu ka sii wadaya iyadana intaasaan kaga baxayaa oo indhaha ka qabsan ma lay walaalo waayo xaqiraadu ma wanaagsana waxa kaloo ayaguna la hadlayaa qolada mucaaradka aan waxaan leeyahay inamadeeni iyaguna waa inamadeeni iyagana waxaan leeyahay bariyahan waxaa iyo si toona meena lahaan jirin intuu halkaas soo istaageen in xaqiriga ee sheega wixii aad ku dhaliilaysaana si munaasaba oo wanaagsan ku dhaliilaba nolol lahaa intaas kaga baxay xal laga bixiyo anagu xal baan ka bixinaynaa dadka magacay ka sheegateen waxa weeyaan waxaan leeyahay oo soo gabagabaya hadalkayga dowladdu wax badan bay qabatay imika waxaa leeyahay waxa diyaara layntii oo laga jabiyey oo ku jira golaha asxaabaya waxaanu leenahay aad baanu leenahay oo leenahay wararka laga jabiyey leenaasi gobolka Saaxil aad buu u fuxiyey Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga ee Royal magaalada Berbera.